qoyskani oo ah qoys danyara oo ku nool magaalada Berbera ayaa waxa isugu darsamay hayn la'aan adduun iyo caafimaad darro asiibtay hooyada qoyskani oo waayeel ah iyo wiilkeeda oo u xoogsan jiray iyada iyo xaaskiisa iyo waliba carruurta uu dhalay hooyo Khadra aw Faarax Sahal ayaa xanuunka faaliga ama qalalka qabtay oo la noolayd muddo ku dhow 40 sano waxayse la noolayd oo gacanta ku hayay iyada iyo xaaskiisaba wiilkeeda Cabdilaahi Ibraahim Liibaan Cawaale oo farsamada dhismaha ee wastaadka loo yaqaan ku shaqaysan jiray intaan xanuunkan ka fadhiisiyay qaarka dambe aanu haleelin muddo hadda laga joogo 3 sanadood taasi oo keentay in gabi ahaanba qoyskii waayo cid u soo shaqaysa oo noloshooda dabartaa sidoo kale waxa iyana jirta inaanay qoyskani haysan hoy ay galaan oo ay ku nool yihiin cooshada daasadaha laga dhisay aad arkaysaan oo uga dhisan jago dhul bannaan ah oo aanay lahayn oo markastaba ay maanka ku hayaan in laga raro oo dadkii lahaa ay ku danaystaan qoyskani danyarta ah oo caawimo dhinaca nolosha hooyga caafimaadka la xidhiidha dalbaday ayaa ugu horreyn waxa ka warbixisay haweeney ka mid ah ehladooda oo aan haynta waxba ku dhaamin waxaanay sheegtay inay u baahan yihiin caawimo dhinac walba ah qoyskani danyarta ahi bismillaahi raxmaani raxiim halkan waxaan ka soo jeedinayaa oo aan ku hayaa dad muslimiina oo xanuunsanaya qoys dhibaataysan oo ilaa inankii ilaa gabadhii ilaa islaantii naafo iyo curyaanba ah waxa weeyaan halkanay degan yihiin waa dad saaxil u dhashay waa dad saaxil ku dhashay waa dad saaxil ku dhaqmay waa dad weligoodba ku noolaa islaantaasi waxa weeyaan 40 sanadood bay naafo ahayd oo curyaan ahayd ilaahay baa loo cabanayay cid looma cabanaynin imikana inankeedii oo curadkeedii oo caruur badanna leh oo bare iyo bayd iyo xoog kala toonaan lahayn baa qaar ka dambe baqti yahay muddo 3 sanadoodana wuu ahaa caruurtiisa iyo hooyadii isaga u jaqafsan jiray maanta se isagu dhulku yaalaa imika dhakhtar baanu geynay dhakhtarkii wuxuu nidhi waa la qalayaa 1200 caanteen toona ma haystaan anana uma hayno waxa weeyaan muslimiinta intay tira ka leeyihiin iyo gobolka saaxil wixii degan iyo wixii islaama cadaan iyo madowba in ay soo kaalmeeyaan oo ay soo caawiyaan oo ay dadka tabaaraysan qoyska gacan siiyaan ayaanu ka baryaynaa una sheegaynaa ilaahayna ka baryaynaa dhakhtar baanu geynay waxbaanu yar ururinay jaar iyo ehelo wixii aanu isku kari karnaba wixii aanu ururinay waxay nala yiri soo baadha xanuun in uu leeyahay iyo inaanu lahayn waanu soo baadhnay xanuun waa laga waayay inkastoo imika muddo ka soo wareegtay waxaana lagu yiri 4400 oo dollar keena hargeysa nagu tiri waanu ku qalaynaa dee 4000 baad sheegaysaa 400 ma haystaan الله الرحمن كابان أنو برينا إنه مد أسخره قيسنا وحلا يده عبد الله إبراهيم ليبان عواله وحو دقيه بربراء وحو دش براء وحو كده قد براء أفرت سندنا هو يدي عريان بيهد عندنا ولم يعبان تشرين Khadra aw Faarax Sahal oo iyaduna hadashay oo ah hooyada qoyskani ayaa xaaladeeda nololeed ee qoyskeeda ka warantay waxaanay dalbatay in dar Ilaahay loo caawiyo maadaama ay yihiin danyara oo xanuuno u raacay hooy la'aan iyo hayn la'aanina ay hayso السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وحنا خضراء أو فارح سهل وحنا نهد ضد العسن بانو نرق يدمر بالي وماتئة وأنا وأنويا الكود بركي هراها أفرتن سنة ضدنا وحنا نافو وانشيفي الساقا يوم بانو مرمرة يدولك الساقا يمكوا عريان والساقا ما يمكن يجلس اللي تمر خلاص قياسه أنا ودا يا حنو بحسوا كي درمضة بدأ يسكوان ودول قادناي أساقوا بس أي مكان يجلس اللي تا مركا وحنا وباهنين مسلمين تا إلهي أين صاع عويان دختر هداي تهي إن هداي تهي برا لجرا هداي تهي إن مسلمين تنصاع عويسه وأنو ده حقه ده وعجنا هل كي أنو شوقنا أنا وأودو ما هيسني يعني وباهنا Cabdilaahi Ibraahim Liibaan Cawaale ayaa isaguna sheegay inuu ku qanacsan yahay qadarta Alle ee ka fadhiisay qaarka dambe hase yeeshee ay kurba ku hayso qoyskiisa uu xoogsan jiray aanu hadda waxba ugu filnayn cid kale oo ka kafaala qaadana aanay jirin bismillaahi raxmaani raxiim Cabdilaahi Ibraahim Liibaan Cawaale waxaan deganahay kan magaalada Berbera in badanna way iska cagafsanayay ustaad baan dhismaha iyo waxa ka shaqeeya xoog maala hooyana oo shaqeynaya carruurtayda dadkana amarka Ilaahay baa iskale waxa aan kuna fooyarkan amarka Ilaahay adduumada hoosta ka curyaamay in badanna waan iska jiitamayay de wax tarana Ilaahay mooyaan aadmi kale kama helin imkana waxa muslimiina iyo waxtarkooda waxay ayaan balowna malihi deegaan kana waanahay dadkii kula shaqeynaa waanahay shaqani leeyay deganay xashiishkay gudaafada la taalana hareeraha iyaga wad yaawaysa de kuwa macalmaayarka kuwa barsaabka kuwa intoy gobolka mid kale nama soo maro
waxaanu qalaqaysaan taaganahay dad calanka tawalisna waa nahay muslima waxaanu ka cabanaynaa adimada xanuunka ilaahay baa horta keena waxaanu ka cabanaynaa balool malin deegaan bana waa nahay 19 jeer cagaf bal la geli cagafna waa la geli halkaas laga soo raray dambe halkan baa la keenay tagani weey kuwa guryaha la bixinayo mar qura lagu soo darayo qoraalkana waxaanka waxaanu ka cabanaynaa imkana curiyaan baan nahay waxaanu ka cabanaynaa in la caawiyo masaakiinta islaamka baan nahay wixii islaam wax tariyo in la caawiyo wixii dhaqtarka ayaanu ku gelaynay wixii ilaahayna la qaban lahayd kalaba maalmihii khayrka lahaa ayaa lagu jiraa sidoo kale waxa iyana fooda inagu soo haysaa bishii barakaysnayd ee Ramadaan ee ajarka iyo xasanaadka la shaqaysan jiray waxaanan cid kasta oo muuqaalkani gaadho ka codsanaya in wixii ay awoodaan ugu diraan lambaradan shaashada ku qoran oo ah kuwa hooyada xanuunsan iyo wiilka ay dhashay amaba ay u faafiyaan muuqaalkan si uu gaadho walaal kale oo muxsina oo caawin doona maxamed cabdilaahi soo fadhiistay Star TV Berbera.